xaflad ballaaran oo si heer sare loo soo agaasimay laguna caleema saarayay Suldaan Mustafa Maxamed Aadan Weyne ayaa ka dhacday deegaanka Baalidhaye oo ka tirsan degmada Gaashaamo ee gobolka Jarar ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana ka soo qayb galay madax dhaqameed ka socday qaar ka mid ah deegaanada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Somaliland inta badan bulshada dooratay hogaamiye dhaqameedka la caleema saaray marti sharaf kale iyo maamulka santarka Baalidhaye iyo deegaanada hoos yimaada ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana madasha ka hadlay xubno ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha deegaanka Baalidhaye Maxamed Xasan Kaarshe iyo hogaamiyaasha dhaqanka ee ka soo qayb galay madasha sida weyn loo qurxiyay ee caleema saarka madax dhaqameedka cusub iyagoona ugu hambaliyay uguna duceeyay xilka dhaqanka ee loo doortay Suldaan Mustafa dhamaadkii munaasabadaasi waxa ka hadlay Suldaan Siciid Aadan Cigalle iyo suldaanka la caleema saaray Suldaan Mustafa Maxamed Aadan Weyne oo ah suldaankii ugu horeeyay ee lagu caleema saaro deegaankaasi waxaana ka mid ahaa hadaladoodii hadii aanu nahay santarka Baalidhaye Suldaan Mustafa Maxamed Aadan waa soo dhaweynaa caleema saarkiisa anagoo ahmiyad badan u hayna oo qiimaysan deegaan ahaanba waa soo dhaweynaa kilka adiga waqtiga la socota barnaamijka saxaab waxaan halkan u nimid inaanu caleema saaro oo ugu ducayno suldaanka cusub Mustafa Maxamed Aadan inta deegaanka joogta waa Suldaan adiguna waan leedahay hoggaankeedii diinteedii ilaahay aan kugu asturo oo caleema saar Suldaan Mustafa Maxamed Aadan Cabdi Suldaan Suldaankii Aadan halkan waxaan ka saarayaa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliyeed Mudane Cabdi Maxamed Cumar waxaan gaarsiinaynaa madaxweynaha inuu aqoontiisa ku arko suldaanka ka cusub Mustafa Maxamed waan baryayaa waan soo dhaweynaynaa ku aaxsanahay waan ku soo dhaweynayaa Mustafa Maxamed Aadan waan baryayaa waan soo dhaweynaynaa ducada waan u qabaynaa ilaahay ha fududeeyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ahaada ka jira ee shaqeeya ee cisiyo waa ummadda u horseeda marka hore waxaan sharaf loo dirayaa madaxweynaha dawladda deegaanka Cabdi Maxamed Cumar suldaanka daada yar leh suldaanka diinta leh ummadda ku dooratay waxay kugu dooratay inaad u shaqeyso oo dawladda deegaanka u shaqeyso oo wixii ka maqan u doonto waxaan isagana si weyn ugu hadlayaa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamed Cumar oo aan u aqaan anigu madaxweynihii kilalka shanaad nabadda aan u aqaan suldaanka marka hore siyaasma منطقة كل وين بتجيء الكش عيال السودان مركز حقلي هرمركا وحياها ترشدنا إنه كلها هذه الدولة أيون السودان مركز حقلي أنا شغال واحد نقول دونتها هرمركا ينبى بتجيء منطقة كل واحد يدات كايس يسولوين تسالي نقول ومغوكي وبغالين بدنهم بليانية مدحوينها كل الكشنات عبد محمد عمر وحنا هاي مدن مدحوينه إن شاء الله تعالى ذاتك الشعب كاجويين ودان سودان كي جودة باش ما تلاقي دورتين هاي waxaan ku amrayaa inay nabadgelyada dadku isu taagaan inay ku taageersan yihiin inaan anigu wakiil kaga ahay danaha khaaska ah ay leeyihiin dadka inaan insha Allah taala noo kooda hadli doono dawladda laamaha kala duwan degmada santarka federaalka waxaan leeyahay iyadana aad iyo aad u soo dhaweynayaa dadweynaha sharafta leh boqolkiiba boqol mahadnaqaya ilaahay sharfo waa markii ugu horeysay ee deegaanka Baalidhaye degmada Gaashaamo ee gobolka Jarar ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya lagu caleema saaro hogaamiye dhaqameed ka soo jeeda deegaankan علي داير محمد بوس تي في عربي ونفرس ديجان كبالة